السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقال كميدا مقال ذي أنا دي سو كنت بجري أو عادنا كان كده وجرتين ما أنت نعرف ربعين على ذي كل سو كنت بيو ودوين هراء إن أنا أركنين حافظة مرة هايو وايو إن ماشان حتى أنجوجا مدك مدان ودك مد شنكاني سنترال كمجالد أو مجالد مالها أوجو إن استراتيجي سن كجرتي ما الله ديه كرمرك حافظة لأنه هو حواي ودوين لو هذا استعماله inkastoo guryahana dadkooda ay degan yihiin haddana laamiyada aan dhex marayo oo dhan waa laamiye shacabka ay u siman yihiin xaafadaha laftirkooda waa loo siman yahay waa sax laakiin xaafad iyo laami gawaaridoo dhan isticmaalayaan isku mid ma aha saa daraateed anigu waxaan oran waayay xaafad hebel leanno xaafad maahan waa laamiyo ama wadooyin caana bulshadoo dhan wax u qabtaa bulshadoo dhan ay si siman u maraan shankaani hadda ka hor muuqaalaha in idinka tusiyay baa jira waaxaheeda kaleeto maanta laakiin waaxdii horeeto waxaan ahaynaan rabaa inaan idin tusiyo insha allah waxaa uun muhiim ah inaad fiirsataan muuqaalada wadanka gudihiisa sida rasmiga ah uu u yaalo iyo wadooyinka qaababka ay u dhisan yihiin sida loogu nool yahay dhaqdhaqaaqa qaabka uu yahay intaasaa muhiim ah waxaa kaloo aniga muhiim iisii ah in taariikh ahaan ay keed ii noqdaan oo taariikhda ay ii gasho in aan degmo walbo ama xaafad walbo magaalada muqdisho ka mid ama wado kastoo ka mid ah inaan duubay oo taariikhda liis noogu jiro ay noqoto shangaani marka wadooyinkeedoo dhan way dhisan yihiin wadooyin burbursan kuma aanan arkinin inta aan dhex socday ayadoo dhanba 4 waax waaye waaxaheedu ma badna xaafadaheedan aad uma badna xaafadaha qaar dhagax baa ku xiran oo kadaal looma talaabi karo waayo waxaan idiin sheegay inay istaraatiiji tahay ama magaalada meelaha ugu dhanka maxaa la dhahaa ay noqoto amniga iyo waxyaabahaas meelaha laga maamulo inay tahay aham shay wadooyinkeeda xaafadaha dhex mara xitaa waa laamigan waaxdan hadda aan joogo waa waaxda Jabuuti horey aan ugu soconayaa intay ka furan tahay meesha iga soo xirantana waan kasoo kala firaynayaa kadibna waxaa arki doontaan meelo kale cusub oo hadda ka hor aan idin tusinin aadna aan dhowr mar ii weydiiseen laakiin jaanisku ii saamixi waayay xamdan lilaahi calaa nicami maanta ilaahay ii suurtageliya adinkan inaa caafimaad iyo nabadgelyo ku daawataan baan rajaynayaa anigana ilaahay inuu iigu soo dhammaystiro nabadgelyo iyo caafimaad heerka aan ka rabo aan ka gaaro muuqaaladan oo ah in aan dhammaan muqdisho meel ka mida oo aanan muuqaal ka haynin aysan dhicinin marka faahno la farakamo qadna kow iyo kala barma joogin xaafadaha aan rabtaan waxaan idinka codsanayaa inaad soo sheegtaan degmada iyo xaafadda laannahu waxaa adag xaafad magaceeda inta lagu sheegay inaad hore ka heshid waayo xaafaduhu way isku magacay kaan karaan xitaa waaxyada isku magacyo eg laakiin waxaa lagu kala saaraa degmada iyo qofka inuu tilmaam gooniya sheego yiraahdo meel hebel oo meel hebel ku taalo oo magaca caan ku ah markaana waa la fahmi karaa muuqaalada kaleeto dhowr mar la weydiiyay waxaa ka mid ah juunkal oo kaleeto juunkal muuqaalo aad u fara badan aan kasoo sameeyay ma u malaynayo juunkal inaan xaafadba ka tegayba juunkal oo dhan waan soo sameeyay muuqaaladeeda dib u raaca hadday suuqa tahay xaafadaha hadday tahay masaajidada ugu waaweyn hadday yihiin agagaarkooda juunkal si fiican aan muuqaaladeeda usoo sameeyay oo waa xaafadda keliya oo aan isdhihi karo wax kaaga dhiman ma jiraan marka muuqaalada juunkal qofkii rabo dib ha u raacdo dib ha kasoo fiiriyo waad aragteen dhagaxaan ugu aan macnaha ku tagnay waan kasoo kala fireynay waxaan aadaynaa dhanka iyo laamiga weyn waxaan sidoo kale sii mari doonaa fish traffica ama wadada weyn ee caanka ah ee liida gasha ee kasoo tagta habar qadiijo muuqaalka nala dhamaystirta nala socda fiidiyoga leeg saara sii sheer gareeya wixii fikradaha oo aad qabtaan insha allah kommentiyada noogu soo qora jidkan aad aragtaan ee sidaan u quruxda badan weli shankaani baan ku jirnaa
shangaani kamaana dhammaanin. laakiin waxaan arkaynaa iskoos ama iskoos le u naqaana annaga, adinka magacay kale hataa u taqaanaa nala soo wadaaga. iskoos kala bara 4 degmo u dhaxeeya, 4 degmo u dhaxeeyana waan sheegi doonaa, asaga wuxuu yahayna waan sheegi doonaa. arkadan aad aragtaan waa arkadan waxaa la yidhahdaa fish traffica. dadka qaar waxay dhahaan waa shangaani, qaarna waxay dhahaan waa cabdicasiis. macnaha anigu waxaan idiin sheegayaa sida dadka ay yiraahdaan. arkadan arkadii hore shangaani ahayd, taas layskuma haysto. laakiin midaan oo fish trafficada ah, dadka qaarna waxay dhahaan dhanka cabdicasiis, qaarna waxay yiraahdaan waa shangaani. almuhim fish trafficana inaan idin tusay oo aad aragteen. jidkan waa jidka habar qadiijo kasoo taga ee liida toos u taga. waa jid asagana dhowr jeer hadda ka hor aad igu weydiiseen qoraal, laakiin jaanisku ii diiday inaan kasoo sameeyo. maanta ilaahay ii suurto geliyey, xamdan lilaahi calaa nicami. adinkan inaad si dhammaystiran u daawataan uu idiin soo gaara allah ka rajeynaya. derbigan aad aragtaan waxa waaye isbitaalka. derbigan aad u jeedaan waxa waaye isbitaalka imaaraadka carabta, ama isbitaalka imaaraadka la yiraahdaa, magac kaleeto looma yaqaano. awal wuxuu ahaan jiray, dadka aan ka rabo waa adinka. annaga asagoo saan ee la dhahayo waa isbitaalka imaaraadka aragnay. dee markaa yaraana ma garanayo wuxuu ahaan jiray. waqtiyadii naga horeeyay oo xilliga hore dowladda hore, adinkaan idinka rabaa meeshaan waxay ahaan jirtay iyo shaqada ay qaban jirtay inaa noo sheegtaan. annaga laakiin hadda isbitaalka imaaraadka u naqaanaa. wadadan waa wadada habar qadiijo ee toos u aadaysay liido. iskooskaan idiin sheegay ee 4 degmo kala barana waa iskooskan. waxyar indhihiina na siiya, dhegihiina na amaahiya. waxa waaye iskooskan hadda aad arkaysaan oo ajabyadan ay ku yaalaan waa iskoos. hore waa aragtaan iskoos weyn waa sooma, meeqa laami baa gasha adinkuba tiriya. iskooskan marka wuxuu kala baraa 4 degmo ee magaalada muqdisho ka tirsan. wuxuu kala baraa uu central u yahay, macnaha ee dhinacyada iyo gadaal iyo hore ka kala xiga. hortiisa degma ah, gadaashiisa degma ah, dhinaciisa midigna degma ah, dhinaciisa bidixna degma ah. saasuu u noqday 4 degmo inuu kala baro. waa ila fahanteen aan maleynaa. iskooska kasoo horjeedkiisa degma ah, dhinaciisa midig waa degmo, dhinaciisa bidix waa degmo, gadaashiisana waa degmo. saa daraateed wuxuu dhex maray ama uu u dhaxeeyaa 4 degmo ee ka tirsan degmooyinka magaalada muqdisho. shidaalkan ugu yara waxaysana u maleynaa. cajabkaanaan istaagayna, laakiin ma ku daahaya, jaa waa kasoo gudbay. iskooskan marka wuxuu kala baray degmada shangaani, cabdicasiis, shibis iyo boondheere. inaan fahanteen aan rajeynaya. wuxuu kala baraa iskooskan hadda aan marayno oo aan taagannahay shangaani, cabdicasiis, shibis iyo boondheere. waa 4 degmo oo magaalada muqdisho ka tirsan ee degmooyinka ugu istiraatiijisan aan dhihi karaa. waayo magaalada centraalkeediiya ku yaalaan, dhinacyada ma xigaan. 4tan degmo mid intaa waaday, mid intaa waaday, midna intaa waaday. bimacnaa mid horaa waaday, mid gadaala waaday, mid midiga waaday, midna bidixa waaday. saa daraadeed waxay noqdeen 4 degmo iskooskan uu kala baro oo aan niri waa shibis, cabdicasiis, shangaani, boondheere. waa ku mahadsantihiin. waan soo kala firay, horaan usoo baxay leannahu waxa waaye ahmiyadda aan muuqaalka ka lahaa waxay ahayd inaan wadadan iyo shangaani inta iiga dhimaneed aan idin tusiyo. tiina ilaah baa ii suurto geliyey. waa ku mahadsantihiin. ducada, garab istaagga, dhiirigelinta iyo wax walba ee aad igu garab siiseen. mar walba waxaan idin leeyahay abaalkiina allah gudo. aad iyo aad u mahadsantihiin. anigana ilaahay u waafajiyo heerka aan rabo. Soomaaliya oo dhan baan rabaa, muqdisho bes maya. muqdisho bes muuqaaladeedii yaaba xadka ka baxayba. laakiin muqdisho markaan soo afjaro waxaan u gudbayaa biidni illaahi alkariim
gobolka markaas aan is idhaahdo kanaa kuu dhow ama hadda aad jaanis ku heshay ee ka faa'iideyso aan muuqaaladiisa arki doontaan si janalkan uu noqdo janal ummad Soomaaliyeed ay leedahay kaliya wax aniga aan leeyahay uusan noqonin. shukran lakum fiish taraafikada aan idiin sheegayana waa tanaan laano Shankaani dhinaca cabsi ka xigtaa maxaa la Cabdicasiisna dhinacaani ka xigtaa marka saasay dadku waxay yiraahdaan waa Cabdicasiis iyo Shankaani المهم وين أركتين وما تنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.